بسم الله والحمد لله صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan rabay galabta arrintaas oo nimankaas reer waqooyiga aan anakuna nidhaahno iyakuna somaliland isku yaqaana iyo booqashadaas ay ameerika ku tageen iyo sida wax noqdeen iyo sida loo qaabilay iyo waxyaalahaasaan rabay iyo dhaqanka soomaalida say u dhaqmeen aan rabay xoogaa inaan wax ka taabto. horta nimanka haddii dee markii oo anigoon hadda ka hadlaynin waa sax iyo waa sax la-aan qaabka wax ku doonayaan, laakiin dee nimankani wax inay wax doonayaan shaki laguma arko, wax ka maqan yihiin, waxbaa ka maqan. wax hadda 30 sano bilowdayna maahane waa wax ka horeeyey sidaan aniga dareemahayo. waa tii xataa markiiba ay dhoweyd gobonimada iyo isu tagu ay dhawaayeen, waa tii ragga qaarkood sida xasan kayd iyo raggi la sheegi jiray waa tii ay damceen inay inqilaab sameeyaan, macnaha inay waxdadii ka noqdaan meeshaa ka muuqatay. waa sax iyo waa sax la-aan laga warramaa, laakiin intaasay maaragtay kiisku aan isleeyahay waa soo socday. de markii ugu horreysay fursadda heleenna waxay ahayd markii oo 91 ay ahayd, markii dowladdiiba burburtay ayay maaragtay waxay is yidhaahdeen wixii waa suuragal, iyagoon haddee laga yaabo inaysan ka fakerin qaabka oo dee arrintu ay noqon karto caalamiyan iyo daakhiliyanba qaabka ay noqon karto iyagoon ka fakerin inay maaragtay yacni arrintaas ay ku dhaqaaqeenaa dhici karto jaanibka iyaga. laakiin anagu horta yacni yaa isku dayey horta nimankan kiiskooda in qaab loo xaliyo in la helo ama la doono, wax isku dayey horta ma jiraan. in la xallin karo, inay xalisbi karto iyo in kale, in xaliskiiba la raadsho, in wax ka maqan inay jiraan in kale, horta wax yacni tabay oo arrintaas tabay oo ama is yiri war maaragtay kiiskan see loo xaliyaa. waa dhici kartaa inaad tidhaahdaan hadde annaga laftayadaan saldhigba helin, waa dhici kartaa, waa runoo saldhig nafle maanaan helin, sax waaye. laakiin haddana waxa weeyaan xataa dee wuxuu mararna waa dowlad waaye, marna waa dad waaye. dad ahaan xataa waxa weeyaan xataa nimankaa meelaha ku shirshira iyo maaragtay wax is yiri war nimankii bahalkii maxay ahayd nimankan iyo walaalahayaa maxaa ka maqan, maxaanse ka qaban karnaa, xuluul xataa maaragtay inay doondoonaan isku dayey ma jiraan. horta ma u malaynayo hadda anigu kolley ma maqlin mana arag. xagga annaga wadaadadayada hadda waxaa maaragtay dhibkama jiro, kulliganaa wax naga maqan yihiin, kulliganaa wax naga maqan yihiin oo aniguba hadda maaragtay muddo oo maaragtay bahalkii maxay ahayd 50 sano ku dhow maaragtay ama la ii xirayay ama dil la iigu xukumayay ama maaragtay ilaa hadda aan u xiranahay, waxbaa naga maqan. ayadana hadda cid istiri war nimankan maxaa ka maqan ma aanan arkin. marka ma cillad soomaalidu leedahayba mase waa cillad caalamiya? intaba waxa weeyaan waa laga yaabaa inay wax ku leeyihiin. kiiska iyaga adiga uu cillad caalamiyaha ugu weyn, mid daakhiliyana waa iska jirtaa. hadda marka dadkii ila hadlahayaan macniha oo maxaad rabtaa, dowladaan rabaa islaam, marka kuwa gaalada ahna waxay yidhaahdaan waqtigan inay ku suuragelayso u malayn mayno ayay ugu dhahaan. soomaaliduna waa jarahado dad iska baqayo oo waa wax fiican, laakiin waxa weeyaan goorkan ma suuragal aha ay iska odhanayaan. sidaas gaalada laftooda u fakarayaan ilaa iyaga awoodda haysta run. kuwana marka waxa weeyaan dee asalkeeda waxaan isleeyahay waa daakhili oo hadda caalamku hadda qolo tiri nimankaasu maaragtay ha go-een oo aan ictiraafno oo la isku soo qaaday ma maqlin ilaa hadda maaragtay xataa maaragtay safarkan laftiisa waa laga garanayaa oo hadda
يعني maamul ahaan iyo dawlad ahaan ma aysan u marti qaadin waa dad khaas ah marti qaaday marka saas oo kale waay laakiin anaga marka wax weeyaan qolada marka Soomaalida oo hadda meeshaas joogta ayaa xoogaa waxaan ku dhaliilsanahay qaab dhaqankan ku dhaliilsanahay oo waxaan isleeyahay saas si ka fiican ayaa ay wax yeeli kareen isleeyahay oo hadda buuqa iyo iscayga iyo maarta xishood darrada iyo waxyaalaha caynkaas oo kaleeto in wax ka fiican aan dareemayaa inay suuragal ahaayeen kana waxtar badnaa marar badan yani mudaharaadyada iyo waxyaalahaas waa lagu muujiyaa laakiin waxaan isleeyahay tan si ka fiican ay jirtaan isleeyahay si ka fiican ay jirtaan kulligaanana oo maartay yani Soomaalida oo dhan hadda nagaba maqan ba aslan ahaan oo mid kiiskaas aan leenahay yaaba yiri maxaa ka maqan nimanka cid isweydiisay maba jirto marka waxa jirta yani Soomaalida dhaqankeeda haddaan gadaal ugu noqdo wax yaro kiis yaro waxa jira ima yara waa kiis weyn weeye laakiin qaab xalliska Soomaalidu qofka Soomaaliga ah ama dadka Soomaalida haday doonaan inay wax xaliyaan iyadoo waliba adag waa yeeli karaan macnaha waxaan ka wadaa مثلا ويلا قبر شعلادي قبرنا من دوا كهش سيدها أو مارت اللغة دي ما أنت عم كفسر كهش كامل دي وكايل زمان ده قبلها تقول بيا قال رجل سلوارت وحش عيل كأيق وأثر والله سينو بورسين وشعلاد واحد كلو في السقاية وقارون هي سهدي قشن كيد لكن marka gabadhii soo jeclaaday wuxuu siiri maartay gabadhan Allah ilaahay waa ku anfici kartaa intaan marka hadee wixii ay rabeen ay sadicina cidii dirirta wala kala guuro wala kala markii la isku dhaco wala kala guura xaaladii oo saas oo marka wiilkii maartay dad qofku markii hadii waxaas ku jiraan waa iska cajiib badan tahay oo qalbiga ka xoog badan وسوق عيو وحده سيري مارتي بل مارتي على الأقل بل مارتي أرنتي بل وحكر هذا سو هدي ضدك يصور ورسنا عدي وهلاي عدي مركو هلاي مركو هدي عدي صوما بيجي كرو عدي علوايه وهذا قفكي أجادا وحلقية باينو سنكوسين بضدك مركا هذا هبين وهذا مركا روب ده هيو ماشي عدي يمد markaas wuxuu sameeyay dhahan oo marka cidii uu kuur galay cidii markii roob doo oo kor wax la yiraahdaa jirto maarta waa la okoranaya marka guriga lagu soo wada cararaya qof dadka markii qofkii golol geel seexanaya iyo qofkii dibad iyo arday seexanaya iyo qolka lagu soo ururaya bas marka waa la sheekaysanaya marka adiga marka qolkii u dhaba galay gabadhii markaa wuxuu dareemay meel ay ku jirto oo meesha ay ka hadlayso dareemay marka gurigu wuxuu leeyahay wax la yiraahdo raar oo gaafa iyo dadbina jirta marka meel iska qabtaana jirto oo qofku uu gacanta gelin karo bas gabadhii markuu ogaado meesha ay joogto oo maartay gacantii uu geliyay gacantu qabtay ayadiina sida gabdhaha iyaga maanta ma qayliyeen warkii arrintii gadaal u raacday waxbay dareentay gadaal u raacday marka mindha calaamay isku yaqaaneen oo ayuu tusiyay bas meeshii iska celisay marka gacantii ku celisay meesheedii markaasay tooqay marka samaysay cajiiba marka raggii waxay rabtaa walaalaheedaha inay baarto bal maaragtay markaasay tiri wariyaha hebelow ninkii la igu maartay xoogaa la igu musmus jiray oo la igu tilmaami jiray haddaa aragtaan caaw maxaa samayn lahaydeen bal arrintaa u fiirso caaw haddaa aragtaan maxaa samayn lahayd markaas mid buu yidhi wallaahi haddaan arki lahaa inaan layga soo gaareen dhiiggiisaan ku qubaysan lahaa markaasay tiri anigu saa ma yeeleene waxaan dhihi lahaa bay tiri waa roobobaawe hadday dhaxanu ku haysana go-a meeshaa ku jira la bax baan odhan lahaa
haddii gaajo ku haysana dhiisha maaragtay ariga goraydkiisa ku jirtana caanahaas maaragtay cab baan odhan lahaa adigu hadallo saasay marka ay samayso odaygiyaa marka meel oo ilixir la yidhaahdo aqalku leeyahay uu qoolaaban yahay markaasuu odaygii baa soo galay wuxuu yidhi horta wuxuu yidhi wiilasha waxaan leeyahay uu yidhi gabadhana waxaan leeyahay wiilasha waxaan leeyahay yidhi horta idinka gablamay buu yidhi idinka gablamay buu yidhi yacni kiiska inay fahmi waayeen oo haddana qaabkay u dhaqmeen oo yuu nacay marka idinka gablamay buu yidhi doqomaa tihiin buu yidhi gabadha waxaan leeyahay uu yidhi naaninkuyousan maaragtay dhaxanta kaaga dhimane wuxuu yidhi soo u yeero soo dhawe khalaas marka yani gabadhii ninkii maaragtay yani waa saasaa marka gabadhii loogu aroosiyey xataa waa cid colow waay yani marka waxa weeye waxaan ka wadaa yani oo ninkaas odaga iyo ciddaas iyo gabadhaas iyo qaabka ay u dhaqmeen iyo maaragtay weliba maaragtay kiiskaas weliba colaadu ku jirto yacni waxaan isleeyahay maaragtay yacni dad soomaaliyahoo hadda hadday arrin ka fakeraan inay xallin weyn lahaayeen u malay maayo ee waan laga fakerin marka qadiyadda marka waa saas qoladan marka hadda america joogta aniga waxaa igala qumanayd sida aada samayseen si oo hadda wax ku xalis maayaanna maaha si fiicanna maaha bal adinkiibaa maaragtay isku hadde sidaa la isula hadlaaya iyo oo maaragtay oo aada iyo aad aan uga yaabay maaragtay xishood darrada ah iyo iscayda iyo waxyaalahaasoo aan munaasab ahayn marka waxaa idinkaga roonaa waxaan isleeyahay haddaad intaa warkaa markaad ogaateen aada shirtaan oo isu timaadaan idinkoo soomaali ah aada tidhaahdaan war maxaan yeelna oo raggii markaas aad tidhaahdaan war raggii aan soo dhaweyno ilaa markay ugu yar yihiin waa rag soomaaliya waay rag walaalihiin oo soomaaliya waay soo jeedi waa rag martiya waay haddana dowladnimo looma qaabiline waxaa loo qaabilay maaragtay si uun afraadaha loo qaabil oo xataa gabadhan cadcaayaysaan waxaa weeyaan yani shaksi ahaan ashkhaasaa qaabishay wixii waana gartoodoo maaragtay hadda waxa weeye dad dhanoo u yimid waa inay maaragtay kiiskooda ogaadaan si cala al aqal oo ashkhaas ahaana inay ogaadaan waay waxay la socdaan iyo waxay la yimaadeen iyo waxay rabaan ayagaa marka idinkaga fiicnaa sababto waxa weeyaan inay iyaku mar hadday marti noqdeen oo qolo iyagaahu marti gelisay inay arkaan waxa weeyaan caqligu waa keenaya inay yani marka intaas inaad adinka garan weydaan waa ceeb kabiirahay aniga ila ahayd ceeb kabiir oo soomaaliyada ila ahayd marka inaad ka shirtaan kiiskii oo nimankii marti qaadaan oo calal aqal maaragtay yani halkii muxuu ahaa wanaajisaan oo isugu timaadaan oo maaragtay yani calal aqalna adinkana fikradiina muujisaan soomaalidii inayna kala tegi karin inay caynkaas tahay oo maaragtay yani maalkii muxuu ahaa maaragtay riwaayada dhigtaan oo gorgor garab ka jabay iyo wixii oo dhinta maaragtay isu keentaan yani inaanan kala maarmaynin waa dadku maaragtay si walba inay isu leeyihiin in xidid layahay inay xigaalo layahay in maaragtay yani awood isku nahay inaan qola gaar maaragtay aysan wax u noqonaynin maaragtay yani cadowina badan inaan leenahay oo maaragtay nagu soo maaragtay bahalkii intayada ka qolo wadaba gaarkeeda u qaadan kara waxyaalahaasoo dhan in la muujiyo oo ayagii si caatifi ah oo maaragtay wanaaga loo tuso inaan maaragtay aysan sidaan inaysan suuragal ahayn waxa weeyaan kiiskan weliba ra'yi aad ka soo jeedisaan ood tidhaahdaan kiiskan waxa weeyaan soomaaliya kiiskan sidii aan u xallin lahayn waa inaan gudagalno ood afkaar ka keentaan aniga horta saasaa ila qumanaan lahayd laakiin sida tanu si oo maaragtay waxay runtii aan maaragtay xataa aan isiri maaragtay yani soomaalida dhaqankiina waa dhumay diintiina waa dhuntay meel marka yani waxyaalo aanaan lahayn oo aanan anaga maaragtay aanan dhaqankayaga iyo diintayada midna ku jirin idinku faafay marka yani qaab marka oo usuul aadnaan lahaynaad marka u dhaqmaysaa
usuul aadnaan lahayn aad rabtaa inaad ku dhaqantaan oo maaragtay deed waxa weeye qofkii xataa wax xataa oo xishooda aan lagu arkin xishooda xataa aan lagu arkin soo ma jeedid cali xaraare khayr allaha siiyo inkastoo weli ku haysto waxyaalihii aan ku haysan jiray oo maaragtay bahalkii maxay ahayd aadaabtii islaamka ahayd weli markii khaasatan uu keligiis yahay maaragtay yani markii xataa oo maaragtay saaxiibkiis la joogana ninkood uunbaa maaragtay bahalkaa waxaan uu ilaa hadda waxa uu looga jeedo oo iyo cid uu wadata ma aana garan cidda looga jeedo waxa yani kiiskan sida usoo gudbiyey waa ku ammaanahayaa laakiin de aadaabtii islaamka inuu ilaaliyo weli waa la rabaa weli waa la rabaa aadaabtii islaamka inuu ilaaliyo wacanoo wanaagsan wax ay annagana meliyiin xataa waxaan leenahay xataa ma kulligana marka waxaanaan lahaynaan rabnaa inaan ku dhaqano waxaanaan lahaynaan rabnaa inaan mana qiimanaan kuma yeelanan wax qiimahan kule yeelanayna ma jirto wacanoo wanaagsan iyo wixii lamid waxaa sax maaha marka wax weeyaan walaalayaal maaragtay inaan istoosin marka hadda waa kanoo kulligana waxa weeyaan meel aanan aqoonan waxaanaan aqoon iyo waxaanaan isla aqoon markaas qof walba sow rabo oo hadlaya xishood male bahalkii maxamed iskaraamayn male isceshesho male istoosin male maaragtay isu caqliyeyn male waxa maaragtay yani sida aan nahay si wax noogu hagaagi karaan mabaahan aslan maba jirtaba aslan waxaan leenahay maaha waxaan ilaahay ka helnay maaha waxaan maaragtay dhaqankayagiya maaha waxaan naqaan xataa maaha meelay u socoto waxaan naqaan maaha meelaan u soconno xataa ma naqaano waxaan nahay ma naqaano waxaan isu nahay xataa ma naqaano wax iga yaabiye marka walaalayaalow wargadaal ha la isugu noqdo war maaragtay diintii ha loo noqdo war caqliga wanaagsan ha loo noqdo war walaalnimadii iyo soomaalinimadii ha loo noqdo war maaragtay bahalkii maxay ahayd mustaqbalkii ha laga fikiro war maxaan noqon karnaa maxaan ahaan karnaa ha la yidhaahdo maxaan noo suuban ha la yidhaahdo wax aanan garanaynin meelaanan garanaynin aan ku soconnaa waxaanan garanaynin aan nooga soo baxayo wax aan qof annagaa uusa raalli ku ahayna xataa ka soo baxayo dhaqanka hadda maaragtay meeshaas ka muuqdo waan la yaaba runti waan la yaab aada iyo aad marka intaasaan rabay inaan gudbiyo ilaahay hana toosiyo allahna toosiyo allahna wanaajiyo dadkuna bani aadamkaahi waxa weeyaan inay fikiraan hadda ilaahay waaba u sameeye laakiin in fakerkii xataa la naco waaba cajiib waayo fakerkii xataa in la nacaaba cajiiba yani war maxaan nahay xaggeen u soconnaa maxaan nahay waa cajiib xaggeen u soconnaa waa cajiib waay maxaa isu nahay waa cajiib waay maxaan noqon karnaa waa cajiib waxaasoo dhan ma jirto waa cajiib waay waa iga yaabiseen allahna toosiyo asalaamu calaykum